أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي sida ku aragtay ciwaanka muxaadarada aynu dejinay waa dhulka ay ku leeyihiin ardaydii jaamacadaha ka dhiganaysa maraykanku faafinta diinta islaamka ay ku lahaayeen maraykanka dhexdiisa si lagu faafiyey diinta iyo tasruurooyin fara badan oo ardayga looga baahan yahay inuu la yimaado khibrad fara badan ayuu sheekhu inoo soo jeedi doonaa waxayna jecelahay inaan si fiican oo eedadii anshaxda uga faa'iidaysano intaana sheekha ku soo dhoweyna waxaa doonaya inaan ku furano aayaad min alqur'aan alkariim inoo akhriyo aayadkase aada u aragtay wax badan waa sheekh macruufa waddanka wuxuu ku cusubiyo waxaan filaya sanad inaanay ka badnayn intuu nala joogay laakiin sheekh dacwadda iyo faafinta diinta islaamkaba door badan ka soo qaatay weeye aabihiina magaalada macruuf u haayo sideetanaadkii ama aynkii ka hor waa sheekhiinu jaamaca markii laga khudbadeyn jiray khudbadda ka jeedin jiray sheekh cabdiraxmaan qaaliye runtii khudbadaha عربي ما هو خطبة يقتلي بمستشار ما تجي مساعد ما خطبة يلا ترى مساعد كاشة إنه بدري عالم في مكان مشغل بلد في وقت راس طبعا كل هو شر معروف وصدق يا شر عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وورين وحن ومهنقيا إدارة جامعة هرقيسة iyo maamulka kulliyadda diraasaadka islaamiga ee luqada carabiga iyo dhammaan walaalihii ka qayb qaatay suuragelinta muxaadaradan caawa aan idinla wadaagayo waxaan kaloo u mahadnaqayaa xuduurka dhammaantiin ardayda جزاكم الله خيرا وحن رجينا إن شاء الله إنه كلا فايدين دون عاوة موضوع عاوة اللي له ذاقية وحويا قيبة كمذا تحناها تاريخ ذهبية يشيكوين حريرة ويدعدوين كيغا حروفتها أي قرين arday dhalinyaro oo muslimiin ah oo ku noolaa waqooyiga Ameerika ardaydaasi oo jaamacadaha ka dhiganaysay waqooyiga Ameerika oo la isku yiraahdo USA-da iyo Canada la isku yiraahdo dhalinyartaasi raad ayay kaga tageen dhulalka ay ku noolaayeen jaamacadaha iyo collegeskaasi ay wax ka barteen fatradan ka hadlayana waxa u badan waasiteetanadii weeyaan intaan anu ardayga ka ahaa Mareykan laakiin waxaynu dib u milicsan doonaa toddobaatanadii oo saldhig iyo aasaas u ahaa dacwada ka hirgashay North America iyo faafinta islaamku uu ku dhex faafay ardaydaasi badankoodu markay jaamacadahu dhamaysteen ama heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad ninba intii ilaahay u calfay waxay ku noqdeen dalalkoogiiba ku noqdeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa in midhaha wanaagsan iyo raadkaasi khayrka leh ee ay arladaasi North America ay kaga tageen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkeeda uu ku cusleeyo miisaankooga maalinta qiyaamaha yawma laa yanfacu maalun walaa banuun إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن شعله أنت هنا قليل موضوعه طبعا فافين الدعوة ذا أي موضوع لحليلا أما إن إسلام كلاب بندقه ده مسلمين إسلام كان ضد كمسلمين كإيمانكم ضعيف يا هي
iyaga laftooda la baraarujiyo oo iimaankooga boorka laga tumo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa quraanka ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billah khayriyada ummadani waxay ku xidhantahay saddexdaa sharti sida Umar radiyallahu ta'ala anhu ibn Kathir kasoo warinayo waa ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billah ummadda muslimku ama dhul islaam ha ku noolaadaan ama dhul gaala ha ku noolaadaane waxa loo baahan yahay wanaag isfaraan xumaanta ay iska reebaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ay rumeeyaan ayna rafsha afan imaam bukhari oo imaam muslim waxay soo wariyeen sahl ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu soo warinayaa in nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska macruufka ah markuu ali ibn abi talib khaybar maalintii khaybar ayaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam fa wallahi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم حمر النعم نوى قيل قالها وعربت أي كفاني جستي ونفيسها وعلماء الليهين إن تكوى سيمبل كدو حولها قالقة قيلا قالقة وحكا خير بمن إنه إلهي سبحانه وتعالى أذيك سببتها وقف وكسوها نونيو واي aynu ogaano waxaana tihiin da'yar baa tihiin qofka bini'aadamku markuu adduunyadan ka horeelo ee qabrigiisa ka galo wuxuu ka tagaa raad wanaagsan ama raad fiican geeridaada kadibna waxa taariikhda ku gala ee lagu diiwaan geliyo ee lagu xusuustaa waa raadkaagii ama ha noqdo mid fiican ama ha noqdo mid xun ha noqdo wal ciyaad billah inta haddaan ka imaado arday baynu ka hadlaynaa North America waxa ka baratay oo jaamacada ka gashay oo diintana ku faafisay laakiin ardaydaasi muslimiinta ee xilliyadaasi todobaadnadii iyo sideetanadii Mareykan tagtay waxaynu qeymin karnaa afar nooc bay ahaayeen afar qaybood ay ahaayeen qaybta hore waxa ahayd qayb arday markay dulalkoodii joogeen ku xidhnaa xarakaad islaamiga waxaan filayaa inaad la fahmisaan waxa uu jeedo xarakaad islaamiga bimaana waxay ku soo dhax in barbaareen xarakaad dacwiya oo hadhow aan idin kala faahfaahin doono intay haayeen waxa jiray qaar ikhwaanusinka jiray qaar salafiina jiray qaar tabliiqa jiray waxa jiray Allahumma salli ala Muhammad xisb tahriirka jiray waxa jiray al-jamaa'a al-islaamiyya oo u badneed hindida iyo baakistaanida iyo bangladeshka oo ah in jamaacadii Sheikh al-Mawdud rahmatullahi alayhi oo asaasay oo iyagu dhinaca badnaa marka dhalinyartaasi maadaama ay ku soo dhex kareen xarakaad islaamiya iyo jamaacoon dacwiya markay Mareykan yimaadeen waxay la yimaadeen iyagoo xambaarsan hami dacwiya tacliinta soo doontaan laakiin waxa ku weynaa badhulka inay yimaadeen sida islaamka ay ugu faafin lahaayeen miraha diintana ay ugu beeri lahaayeen nooca labaad ee ardaydaasi waxay ahaayeen arday iska xambaarsanaa inay diinta ay dadka ay la wadaagaan iyo dacwadana ay fidiyaan laakiin wax intimaa xarakiya ama xigto dhaqdhaqaaqeed aan lahayn qolada saddexaad waxay ahaayeen iyaguna dhalinyar ama arday iska muslimiin caadiya laakiin aan daneynayn faafinta islaamka iyo in dacwada islaamka mujtamacan cusub ay ku soo biireen in la wadaagaan qolaas waa qolada saddexaad qolada afraad waxay ahaayeen arday muslim ah oo inaan dafireen laakiin cusaab ay ahaayeen waxa moodaa in badankoodu ama iyagoo caasiina ay ka yimaadeen oo ku gabood falay diintoodii inkastoo muslimiin ahaayeen dulalkoogii way jireen kuwa badan oo saasiya oo maalinka maanta ah in sida ku yimid Mareykaniyada xaaladoodu ay tahay waxa kale oo kamid ahaa qaar iska wanaagsan laakiin markay in ay yimaadeen environment kaasi ama bay'adaasi macsida iyo dunuubta ay ku badan tahay waliba jaamacadaha gudahooda iyaguna kuwa ku biiray oo in laga yaabo inay sinbirxoodeen laakiin kuwa badan oo labadan qoleed dambe kamida kuwa iyagoo cusaada Mareykan yimid iyo kuwii in Mareykan gudihiisa ku inxiraafay macsida ku dhacay kuwa badan oo kamidii dacwadu way taasiir bay ku sameysay mar dambana waxay u soo noqdeen diintoodii iyo masaajidadii iyo maraakistii islaamiga haddana inta ka soo gudbo aan waxay ka sheego in waaqica jaamacaadka Mareykan fatrada aan ka sheekeenayo waana waaqic iska caamo jaamacadaha Mareykanku ay leeyihiin
khatarta taalay markaan jaamacadaha dhiganay laba nooc bay ahayn wuxuu ahaa mid khatar la xiriirta dhinaca fikirka iyo ideology-ga yani inxiraafaad fikri oo badan oo yaalay jaamacadaha gudahooda nooca labaad wuxuu ahaa inxiraaf dhinaca suluuga ah oo midalkii oo kale dhaqanka girlfriend iyo boyfriend leeraa oo wax iska caadi sida biyaha loo cabo kale weeyaan bimacnaa zinadu mujtamacaadkaasi jaamacadaha dhexdeeda waliba habeenada yani weekendka la yiraahdo ee Saturday night iyo Sunday night-ku waxa weyn waa wax iska caamo lagu yaqaano jaamacadaha Mareykan inay ardaydu khamri cabaan in maalinka maanta dadkaasi ardayda gaaladii in dhaqankaasi boyfriend iyo girlfriend uu iska yahay wax caadi ah khatarteeda lahayd waxana hubaalay in dhalinyarada muslimiinta qaar kamidii ay dhaqankaasi xun ay ku dhaceen haddaan ku noqdo dhinaca khatarta fikriga ee jaamacadaha Mareykanka taala waa inxiraafaadka fikriga weeyaan markaad jaamacad Mareykan ama college university waxa doonto ahaatee aad diganayso waxbarasho uma tegisid oo ma oranaysid waxaan hay engineer student baan ahay ama waxaan hay science student ma oranaysid jaamacadaha waxa taala afkaar baa taala macallimiinta wax ku dhigaysaa waliba kalaasyada social science-ka waxa ay gudbiyaan afkaar khatara oo ilhaad uu ku shaqlan yahay in secularism calmaanida ay ku shaqlan tahay in diin la'aani ay ku shaqlan tahay marka waxa weeyaan jaamacadaha fikradahaas ay yaalo oo professorkii isagoo wax ku dhigaya ay hadana fikradahaasi ayuu si sahal u gudbin karaa oo ardayda taasiir ugu sameyn karaa waayahay taa waxa ka sokaysa in environment-ka jaamacadda gudaheeda albay'a aljaamiciyya lafteeda ardayda dhiganaysa afkaaro kala duwan wataan waxa jira arday in mulxidiina waxa jiray barigaasi isteetanadii aan ardayga ahaa in arday shuuciina jaamacadda dhigan jiray sheekh calnaw jaamacadda isaga laftiisa uu soo dhigtay waxa ka jiray oo la yaabi kartaa arday shuuciin Soomaaliya oo communist-ka ku qanacsanaa xilligaasi oo islaamkuba ma garanaysan waxay tahay in hujuumay waxa jiray arday khalijiina oo shuuciin aha jaamacaddan dhiganay waxa ka jiray itixaad talabat alkhalijiin oo ahaa khalijiin sacuudiyiin iyo imaaraatiyiin isku jira oo shuuciina iyo kuwa kaleba waxa jiray falastiiniin shuuciina dhigi jirtay marka jaamacaddu waxa ahayd macrad bay ahayd bandhig oo yani koox walba oo arday ama kuwa kristaanka ka jiray nooc walba kuwa yahuuda jiray muslimiintuna dabcan waxa weeyaan meesha ay ku guuleysteen ama meelaha ay bandiirada islaamka ka dhex taageen waxa kamid ahaa in campusaska jaamacadaha in iyo collegeska oo fikradaha farabadan ee jaamacadda loo soo bandhigay ardaydu iyaguna ay qayb laxaad ka qaateen oo islaamkoogii ama fikir ahaan ay u soo bandhigeen ama suluug ahaan oo ah ku dhaqanka ay ku dhaqmayaan diintooda iyo islaamnimadooda way haddaba ardayda muslimiinta ee jaamacadaha dhiganaysay طبعا وان يسو شيغي دينا جماعوينكا كوي جماعوين كسو جيري جيري حركات كميشه جيري اما اخوان مسلمينكا اما سلفيينتا اما تبليغا اما حزب تحريركا اما الجماعه الاسلاميه او بنيسان نديري باكستانيينتا iyo hindida iyo bangladeshka عملka islaamiga ay bilaabeen maxay u rajeedeen taas su'aala iyo dacwada ay fidineen maxay u rajeedeen اولا وقبل كل شيء waxay ahayd inay fooga ilaaliyaan way hadaanad naftaada aanad ilaalin cid kale ma ilaalin karisid mujtamacaasina waxa weeyaan waa mujtamac dhaqankii islaamka iyo akhlaaqiyadkii islaamka intaba ka fog waa dhaqan ay fududahay in lagu simbirnaxoodo xumaano badan oo hadhow qofku ay mararka qaarkood ayba ku adkaataba inuu ka soo noqdo hadduu khamriga barto hadduu drugska barto iyo hadduu xumaanayaalka kaleba u barto marka ardaydu ducaada ahayd dadaalkooda koowaad wuxuu ku wajahnaa awal oo qabla kulli shay bal in iyagu isbadbaadiyaan talabaad waxa ahayd inay ardayda kale muslimiinta ah iyaga laftooda intii ay wax tari kari lahaayeen ay wax taraan ayay iyagana ay ku dadaaliyeen tasaddexaad waxa ahayd in diinta islaamka oo raxmada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa quraanka isagoo nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka hadlayay oo yiri wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin on hore intuu soo sheegay akhi inaad adigu diinta la noolaato kaliya ma aha ukhti inaad diinta kaliya la noolaato ma aha islaamka waxa weeyaan waa risaala caalamiya oo waa inay ka baxdo xuduudda muslimiinta
وبني آدم بدن بهجروا أؤمن ودونا إن الإسلام كبرتان إن كون بدنا أي مسلمين ودما أنت أقتها هي سدا إحصائياتك يتركوبيدو أي شيئا إسلام هو دينتا وقفا في تانك بدن مريك دينتا وقفا في تانك بدويا دينك فافتان بدل مجرته تاسو waxa ku timid waa juhuud iyo dadaalka dadka muslimiintu ay bixiyeen dadaalka muslimiinta ee Mareykan tagtay iyo Kanada ama bishakal caam galbeedka tagtay todobaatanadii isteedladii meelo badan oo caalamka islaami ka jira waxa ka talin jiray dictators aan dadka oo ogoleen inay ra'yigooda cabiraan aan ogoleen ama ra'yigooda siyaasiga ama ra'yigooda caqaaidiga ama kooga fikriga inay cabiraan oo waxa weeyaan dad badan oo dhalinyaro ah ayaa maalinka maanta ah looga abaal dhigay in jeelalka la geliyo in jaamacadaha laga eriyo in la cadaadiyo wixii culimada iyo ducaada lagu hayn jiray todobaatanadii isteedadiina waynu ogeen jeelalkii lagu jirdiri jiray dad qaar badan la laayay marka ardaydana markay Mareykan timid waxa ay dareemeen inay fursad u heleen inay cabiraan aaraadooda iyo afkaartooda waxaan xusuustaa habeen anagoo inama caraboo fadhino ardaya ayaa waxa nala joogay wiil Suuriya oo markaas Suuriya ka yimid waa isteedladii weeyaan طبعا قضاياadka ay dhalinyaradu markaa ay ka niqaashin jireen waxa mar walba soo galayay awdaacda siyaasiga caalamka islaamka ka jirtay mar Allah la yarkii uu cabsaday waayo xaaladda uu kaga yimid dalkiisa Suuriya waxa ahayd in qof walba aad ka shakido in xitaa waxaan la yaabay intuu daaqada istaagay iska inay cidageysanayso wala fiirso yani wadciga ay dadku ku noolaayeen iyo markay Mareykan dul xorriyada aad leedahay fikirkaaga cabiri karso raayigaaga siyaasiga aad jeedin karto waxa ahayd wax la yaab leh waxaan garanayaa inuu saaxiib aanu hayno in Liibiya 79kii ama 78kii ayuu Mareykan yimid waxyaabaha Mareykanka ee arday uu ku ahaa jaamacad magaalada Benghazi ayuu arday ka ahaa engineer student buu ahaa waxa ku dhacay in Qadaafi ardaydii ay jaamacadda dhigan jireen qaar kamida jaamacadda horteeda lagu daldalo la dilay oo iska soo baxsaday waxaan doonayaa inaan fahamsiiyo awdaacda ay arday iyo dhalinyaro badan oo muslimiin ay ka yimaadeen markii North America ay tageen awdaac afka la iska hayo dictator baa wixii xukuumaya raayigaaga ma sheegin kartid in fikirkaaga ma cabiri kartid iltizaamkaaga diiniga ma muujin kartid waxay maadeen dhul maxay dhul waxa soo dhami ay u banaan tahay oo aaraadoodii iyo afkaartoodii ay cabiri karaan taasina waxa ay taasiir ku yeelatay in niqaashaad fara badan oo xilliga taagnaa ay ardaydu ama jaamacadaha gudahooda ama guryahooda markay wada fadhiyaan ama jalasaadka majaalis ee masaajidda iyo Islamic centerska waxaan jeedaa xarumaha islaamka lagu qabanayo in arrimaha ka wada niqaash jireen midalkii oo kale hadaa yar dejiye mawduuca ee sideetanadii arrimaha aad iyo aad ka caanka u ahaa waxa kamid ahaa midalkii oo kale intifaadadii Falastiin soo xilliga ma bilaabmin eetiyada bilaamatay kacdoonkii in shacabka reer Falastiin ee doonayay in isku xoreeyaan in isticmaalka Yahuudda intifaadada magran samaxay tolo loogu magac daray waxa mawduuc qaa'ima oo ay ardaydu mar walba ka wada hadli jirtay waxa kamid ahaa shiicada iyo kacaankii Iiraan oo xaqiiqatan ardayda ahlu sunnaha ay Iiraan iyo shiicadu hujuum weyn ku soo qaadeen iyagoo isleh waxaan hanan doontaan ardayda sunniyiinta ee jaamacadaha iyo collegeska Mareykan wax ka dhigta laakiin wuxuu ahaa mashruuc ay Iiraan inkastoo lacag badan ku bixisay ay ku fashilantay buha مشروع ay ku fashilantay oo ay ku hanan kari weeday ardaydii sunniyiinta ahayd ee jaamacadaha Mareykanka iyo collegeska wax ka baran jiray mawaadiicda qaa'imka ah xilligaas waxa kamid ahaa in islaamiin badan oo waxaan jeedaa islaamiin meelaha caalam islaami kamid ah inay العمل السياسي ay galeen oo ay qaarkood ka qayb qaateen in baarlamaanada dalalkooda waxa arrin ardayda Mareykan wax ka dhigaysay ay isku khilaafsaneed niqaashaad badan baa laga yeelan jiray culimada timaadada su'aal baa laga weydiin jiray kii ogol iyo kii khilaafsanba oo ay waxaan qofka ra'yigiisii waa meel aan idiri waa majaalaad qofku ra'yigiisa uu ku cabiri karayo waxa kaloo kamid ah jihaadka Afghanistan baa kamid ah ee shacbiga Afghanistan xoreeyeen in ruushki iyo waxaan jeedaa al-Ittihad Sovieti Soviet-Unionki waxa mawduuc aad iyo aad u qaa'im ayuu ahaa oo qulubta dadka muslimiinta iyo dhalinyarada khaasatan muslimiintana uu ku tacalluqsanaa taa waxaan aan u leeyahay
مواضيع سياسية عالم إسلامي كتاجنا حلقة دنيرت أمريكا دنيرت عالم أمريكا وحكى لي جاني شيء كمان مغنين كأنهم طبعا إنترنت ما يشرين لكن واحد شري جرائد مجلات علومات مادة وحاصل دمي واحد تأثير بدن أي كوية شين أي نقطتين الباب أفري دنيرتي أرضي المسلمين أمريكا ينور أمريكا شوكتي إن يصير توصى القلوب تودا عواطف تودا عقوش تودا أي وحناته أحداث دواوين كتير عالم إسلامي ورين قانون دنور أمريكا كوجو أي كنول وواقعوجي وضعوجي أي كلمة دين دولكم مسلمين ترى أنا ما نكمل تاع إلى قلالحين وي سي أبلامتي دعوة إسلامية نور أمريكا دنيرتو أي بلابين تاريخهان هذا بعده واحد هلسة إن أرضيات كي أجوه الرئي نور أمريكا كبلامي وحها Muslim Students Association والله صو قابيو MSA يا وأوركا إن أرضية المسلمين تا USA and Canada لا بدي بقول كذي Muslim Students Association MSA والله صو قابيو MSA أوركا سوى حلا أساسي كن يسقال بقول يسدح لحنكي أدوهري كن يسقال بقول iyo saddex lixninkii waa ardayeedkii ugu horeeyay ee laga dhex bilaabay jaamacadaha Mareykanka ilaa imika uu jiraa oo waxa dadka jaamacadaha Mareykanka iyo collegeska intaba uu ka jiraa wuxuu ku xidhnaa in ururka loo oran jiray isagu ka weynaa isaga la oran karo in aaba ama hooyo uu ahaa in ISNA Islamic Society of North America ayuu ku xidhnaa طبعا ururkaasi dadka badankooda ku xidhnaa waxay ahaayeen in dhinaca in dadka Pakistanida iyo maalinka maanta Hindida inkastoo ay Arab badan ay ku jireen طبعا Soomaalidu aad bay u yaraan teel bay Soomaalidu ahaayeen oo arday Soomaaliyeed oo badan oo la sheegi karo xilliyeedasi North America may joogin jaamacadaha xafilada la foole ayaa iyo tii beerihii ba soo diri jiray ardayda aad u tacliinta ugu fiican oo scholarship la soo siin jiray laakiin may jirin عدد وين أو أرضي صوماليات أو مريكا مركا كده مقطع ميجرين أوركاسي أنا مسوي سأوتشرا أي واحد عضي إن كون يسأل بقول يصدحيو تضباطنكي أما صدحيو أما أفرد تواتنكي واتذك ورينيا ويسكون خلافان صدح تواتنكي أما أفرد تواتنكي أي دين عم قالوا بوسطن وجامعة في عين كويالان أي أرضي كويتينا أي واحد كبلابين يعني النواة أساس النقدي عمل إسلامية ومركي دنبي آدو قد حفافي أرضيدا يعني أنا عربته كلي أرضيدا أف عربي كو هذا الشيء دليل الصومالية سيدتنا دي مريكا كنا ولا ويادة هنا وحوين دائرة سي أي مركي دنبي أي دحجلان وقيب كالنقدين وحي كبلابين جوري أفر مقصنا هذا بونفيرسون جوري أفر مقصنا أو أي دنيرتي سكوي من شرين هبنا ويكند كوكله قاركود بدروس وديارين شري قاركود بمكان صباحته المخيمات بيسمين شرين كامس إن قيام الليل بيسمين شرين إن كبدا أي وضع عيار شرين لكن أرضي دي عمل كاسي دبده كودي ما يهين لمن سكت صعوبة ما يهين هدف بيها هاين واحد دوني إن أساسان عمل إسلامي وهدو واحتر ويشا أرضي المسلمين تا إيمان دونتا أم حلقة بتشوكتي نورث أمريكا قولوا سوى حب بحيين دار أرقم بيو بحيين لكن عمل كاسي إلهي بقى أوغابا نصريني أرددي بلابتي الكويتين تها إخلاص كوغا إسلامي بيهايين يوغو همي دعوة وطها دلكوغي كيمين ووين هذه مركي الضنبي وحو ذا قاري ولايات كمريكا كلوبو ذا قاري وحو نسكو بدلي مؤسسة مركي الضنبي اللي بحيين رابطة الشباب المسلم العربي رابطة الشباب المسلم العربي waxay noqotay mu'asasad aad iyo aad u xoog badan oo Mareykan oo dhan shirkooga December aakhirkiisa la sameeyay jiray bariyay anagu aanu tagi jirnay steetanada magranasa waxa isku iman jiray ilaa 5,000 oo arday isku iman jiray 5 cisha la wadi jiray convention centerska magaalooyinka Mareykanka ugu waaweyn ayaa lagu qaban jiray tobanaan culimo ayaa caalam islaami laga keeni jiray oo shan taacisho ama 6 cisho muhaadaraad iyo seminaaro iyo magaranaysa majaalis fatwa ah sida u wadi jiray oo zaad ay u noqon jirtay ardayda muslimiinta ee Afcariga ku hadasha markuu mutamarku dhamaado waxa weeyaan
waxa ma garanaysaa maxay toleeyeen culimada ayaa lagu faafin jiray wilaayaadka iyo mudunka Mareykan oo dhan oo sheekh walba intuu magaalo tago ayaa laga yaabaa 3 cisho 4 cisho intuu soo joogo masaajidka iyo Islamic Centerka oo muxaadarooyin ka akhriyo duruus ka akhriyo su'aalaha ardayda uu ka jawaabo amase waxaan jeedaa raabida Shabaab Muslim Arabi waxa weey khayr badan ay ardayda af Carabiga ku hadli jirtay North America joogtay oo Soomaalidu ay kamid ahayd khayr badan bay kala kulmeen Ilaahayna uu ku anfacay waxa isla jiray jamciyada Quraan oo Sunnah oo iyana ahayd muassasad in mu'tamar aad u weyn inkastoo ka raabidada aanu leekeen sameyn jirtay oo culimo waaweyn iyaduna keeni jirtay qaabka ay u qaban jireen wuxuu la mid ahaa ka raabidada culimada la keenaa dhowr cisha la jooga deetana culimadaasi ayaa wax loo kala diraa wilaayaadka iyo magaalooyinka Mareykan baa loo kala diraa si ay ardayda ugu faa'iideeyaan waxa kamid ahaa in ijtimaac tabliiqa oo isaguna ay dad badan iyo arday badan ay iskugu iman jireen waxa kamid ahaa kan isna aan idlahaa Islamic Society of North America oo iyaga laakiin waxa u badneed jaaliyada u badneed jaaliyada ayaa u badneed laakiin ardaydu waxay u badnaayeen kuwa kale ay u badnaan xisbi tahriir Allahu a'lam kuma hayo in mu'tamar lahaayeen laakiin kulli masaajidada iyo in college-ka iyo university dhexdeeda iyaga laftoodu nashaad bay ku lahaayeen jirideer ay lahaayeen bay qeybin jireen afkaartoodana ardayda way la wadaagi jireen way inta haddaan ka imaado maraakista islaamiga waxyaabaha ay dhalinyarta ardayda muslimiinta ee North America ku guuleysteen waxa kamid ah almost taqriiban yani magaalo walba oo Mareykan masaajid ka sameeyay magaalooyinka waaweyn hadaynu ka nimaano Mareykan waxa jira wax la yiraahdo college towns ama university towns college townka ama university townku waxa weyn waa magaalo yar oo ay jaamacad ama college ay ku taalo magaalada yarna inta badan dhaqaalaheega iyo shaqaalaheegu wuxuu ku xidhayay nolosheeduba jaamacadaasi jaamacadaha waaweyn ee Mareykan ugu caansana waxay ku yaalaan yani in university town ama college town ayay ku yaalaan ardaydaasi North America tagtay waxaan inay waxay ku guuleysteen in Islamic centers iyo masaajid ay ka dhiseen in magaalooyinkii Mareykan oo ay ku faafiyeen nashaadaadkoodu muxuu ahaa ayuha al-ikhwa والخوات يعني activities كأي سمين شرين وحا كمدها أولا مؤتمرات عن الشيء وحا كمدها مخيمات محلولة كذا وحلولة كذا حلية أي جامعة أي فسحيين حلي قرأ كله أي واحد سوء بابوليا إن أرضي ذا اللي مركز كا أما إسلامي سنتر كل حران دي بدل اللي وحويان دي أما السيتي ذا أما استيت كا أي واحد in camps oo meelo la seexdo meelo lagu ciyaaro in madbaqi cuntada lagu karinayay ay leeyihiin marka ardayda waxa loo kaxin jiray iyagoo in badan mukhayamaadkaas la geyn jiray nashaadaadka mukhayamaadka laga sii jiray maxaa kamid ahaa ee laga jeedin jiray ama lagu qaban jiray waxa kamid ahaa muhaadaraad la jeedin jiray waxa kamid ahaa qiyaamileel in la tukan jiray waxa kamid ahaa salaada subax marka la tukado kadib in maalinka maanta ah in xalaqada juwida la sameyn jiray waxa kamid ahaa in ciyaar ama volleyball ama kubadda cagta waxa kamid ahaa hiking in ardaydu ay keenta dhex lugayso umuuman nashaadaadka mukhayamaadka lagu sameyn jiray waxay ahaayeen nashaadaad aad iyo aad u dhisi jiray in caqiidada diinta intimaaga identityga iyo thaqaafada ardayda muslimiinta waxa kamid ahaa masaajidka gudihiisa ama Islamic Centerka gudihiisa in habeen walba oo jumcaha muhaadaro lagu qaban jiray oo ardaydu isku iman jireen deetan la wada cashayn jiray waxa kamid ah nashaadaadkooga in jaamacadda ama college-ka gudaheeda usbuucii mar ay sameyn jireen table ama maalinka maanta ah miis ay ku soo bandhigaan buugaagta iyo literature-ka islaamka oo af Ingiriisi ku qoran si dadka doonaya islaamka bartaan ay u helaan يعني source أما مرجع أي كبر تان إسلامكي taas nashaad weyn oo qaban jireen buu ahaa dadna way ku soo islaami jireen waxa kamid ahaa kale in khudbada jimcaha ay college-ka gudahiisa ay ka akhrin jireen yani khudbadna masaajidda laga akhrin jiray aduu masjid abala masaajid xiliga uu jiray laakiin waxa daruuri ahayd in jaamacadaha gudahooda khudbad jimce laga akhriyo khudbada jimcana gaaliban waxa akhrin jiray tabcan waxay ahaayeen ardaydu bay ahaayeen
isxil saari jiray oo liis baa jiri jiray lagu qori jiray ardayda kii ku tabarucaya inuu khudbadda jimcahaasi bishu markay intaa tahay uu akhriyo طبعا عفوا ما هو الإعظامي محاضرة المرة ولكن وحوجا ما يرد المرة إن شاء الله بإذن تعالى يعني واحد نقول أرضيدو هدف كوجو هو يروحوا محي إن نفوق إيرانيان ولا له ذكر أرضيد إيمان كوجو ضعيف في هاي مساجد كسر حران إسلام كان أي مجتمع أي أوبن ديجان إسلام كا أي أوبن ديجان وحيابها يعني تأثير كوين كل شيء آدي أساعدي لنيرت المسلمين تا وحنفلا يا واحد كم إذا محاين دبيديو وسمين شري الشيخ أحمد ديداد رحمة الله عليه أحمد ديداد والمقشين ذاك النايك بأرضي سياه بركا شيخه كن هي صغال بقول يلحي ستة كمان فيليا أما سدين ستة كلا بضع مد أيو مريكي دبيت عنها أيا وحول لقى بادر وين أو إيفانجيليكالا أو جيمي سوانك لا يلاحظوا وحولها دبيت آد لو ذي مد وأيضا بدنا كسر قريب قلين إن دبيت هذا ويا محاضرين كأحمد ديداد كتشيلين شري كريستانكا oo xoog saari jiray in bible-ku aanu ahayn hadalkii ilaahay in nabi ciise aanu ilaahay ahayn in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yahay kii rususha lagu khatimay bal ku doodi jiray bible-ka ba lagu sheegayba waxay ahayd masaa'isha uu sheekh Ahmed Didaad uu dhalinyarta u soo bandhigay marka bariga internet laakiin cataradii video la daawan jiray waxay ahaayeen arnimo dhalinyarta muslimiinta xamaasad galiyay oo ida sida loo baahay in loo soo bandhiga waa inay tahay si aad iyo aad ay qanaacad ugu jirto oo waliba qofka aad la doodisin aad runtii u jeedo kaga tooriso walidaalka waxa loo bixiyay the lion of the stage the lion of the stage waay Ahmed Didaad hadda dhacaysa daawato markuu qofku la doodayo waxaad moodaysaa inuu yahay libaax qofka cunaya وعفوا أبو حنيفة والشافعي بقى يجينا صفات أصلا كله لو تلمامي بمعنى واحد بيان حجتي سأل أكيد ضد أنا ويكون مسلمين أو إسلام كيكون سو قالين سيدان إذا إرنا حتى أرضي المسلمين تأهيد المرايكان كنا ولا جماعة ديجانيسي آد بي إن أسلوب كي طريقة دي وكريستيان كأولى نقاش هاي أو حقوق ترتي أو يساعدي واحد حسوس مرة قاتي كلاس world religions diimaha adduunyada marka waxa kalaas ka dhigayay oday baadariyo de aad buu weynaa PhD theology uu haystay 8 kana uu gaaray wuxuu ku dhawaaba inuu waxbarida uu ka ritiyaar garoobo marka summer 1985 aan xusuustaa wuxuu waxba kalaas ka hayman soo akhriso marka diimaha adduunka kamid oo taada ahayn in paper ka soo qor warqad ka soo qor buu waahay baan ku yiri marka waxaan doontay inaan kristaanka aan ka qoro aqoonta kristaanka ajalaha Ahmed Didaad baan saanay yaalay waan dhageystay buugtiisa baan akhristay warqadii baan soo qoray end of the termku markuu dhamaanayay semesterkii ayaan professorka ku soo noqday waan hadda u fiirsay PhD bu theology ku haystay wuxuu yiri miyaad wax su'aalo ka haysaa diinta kristaanka طبعا Ahmed Didaad baan soo dhageystay su'aalihiisii baan hayaa wuxuu ku doodi jiray baan ayaan soo qortay laba su'aalood baan ayaan professorkii weydiiyay سؤال شو روح هاد محادو الذين نبي عيسى وإنك إلهي why you are saying Jesus is the son of God مين تشرين باني Old Testament كتاب كينا مركز كل نقطان واحد شرد ضد بدن أو يقلفته تحت الكالسي the son of God why Jesus أوكلي ويا هاي إنك إلهي وحول سؤال أولي جسمان ويدين كمونو جوابين سؤال شلالاني ويديو حيال when Jesus was on the cross Jesus عيسى لي نبي عيسى تعالى عما يقولون ده إله كشبه هيال إنك إله بيلعبان مركو دلدلاية للدلي اللي انقاد إلهي كمين يصير عقيدة إنه تهيبا دلدلاية دول لمتين هو was ruling the world يا دي الحكومة أي وكأمس
igamu jawaabin kalaaskiina waxaan filayaa ABC kalaaska laakiin waxa dhacday inaan sacuudiyan saaxiibeen isagu markaa ay professorka aad isku yaqaaneen ayaa mar dambe ii sheegay maxamedow professorkii wuu islaamay aniga gacantayda kuma islaamin xaqa waxa loo celiyaa dadkii cidii samaysay inankaa sacuudiga gacantiisa ku islaamay kolkaas wuxuu wanayo laakiin uu dhimanayo dhakhtar ku yaalay maadraacaynu soo siyaaranay waan u tagnay uu sii dhimanayaa laakiin wali consciouskiisii wuu joogaa inan uu yahay ayaa ag fadhida waxaan ku ma la hadli karnaa waan la hadlay shahaadadaan u qabtay weyniga dabayl macnaheedu waa maxay ikhwaani wa khawaati waxaan leeyahay sheekh Axmed Diidaad usluubkiisa sidoo diinta u soo bandhigay aqoonta islaamka in shirkiyaadka ay nasaaradu leedahay usluubkiisa wuxuu taasiir badan ku yeeshay dhalinyartii muslimiinta ahayd ee halka dhigaysay aan ayidaya usluubka sheekh Axmed Diidaad xadiiska Ali ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu وليه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب علي بن حاتم كريستيان ظهر مرك انت هانو اسلامين وحين وحانو النبي قالوا صلى الله عليه وسلم قل كاسا عنها حتى حلقه قورتا وجهدا waxa ii sugnaa صليب كروس كان قالها كريستيان كاسا ii sugnaa فقال نبي قال يا علي بن حاتم ألقي هذا الوثن من عنقك صليب كان قورتا كاغا لادا iska tuur nabi sallallahu alayhi wasallam soo qaarmoon karaan inuu nabigu u yarkaadiyo oo maxay saasoo kale ma abadan nabigu toos buu sheegay ya Ali ibn Hatim alqi hada alwathan min unuqik qisa xusuusta in African American oo masaajidka Ramadaan oo gula i'tikaafay marka waxa basketball player buu ahaa team weeyaan waxa weeyaan aawiye adu tiimamka basketball ku ciyaara ay mid u ciyaar jiray uu islaamay imika waa nin weyn oo weeyaan magraas nin dheerood inta leeg una la i'tikaafay xitaa mushafka quraanka afcarabi ku akhriya marka wuxuu buug qoray weyne nooga sheekeeyay carruurtu dhalinyarta masaajidku in badan la hadlay sidoo ku soo islaamay wuxuu yiri anagoo game baan u dalahayn qoladan Los Angeles oo ciyaartay Lakers ka leeyahay barakallahu fiish ali Lakers ka leeyahay marka in Kareem Abdul Jabbar baa u ciyaari jiray wuxuu game-ka bilowgiisii ama dhamaantii anagoo loo korka joognaa ayaa waxaan xirnaa saliibaan xinaabuy oo African American Kareem Abdul Jabbarna muslim buu ahaa marka Kareem baa igu yiri intuu crosskii saliibkii intuu soo tilmaamay yiri what's this su'aal fudma oo maxay waxani dawxuu isagu wuxuu i'tiqaadsan yahay nabi ciise uu astaanu yahay sidoo sheegayaan taala ama yaquluun in isagoo ilaaha la daldalay wuxuu nagu yiri waan ka jawaabi kari waayay buugiisana ku qoray what is this balkan diintaadii baa astaanto ah wuxuu yahay waan ka jawaabi kari waayay su'aasha uu Kareem Abdul Jabbar weydiiyay ayaa igu kaliftay buu yiri inaan islaamka baaro oo islaamka ogaado wuuna bartay oo waxa weeyaan waan ilaahay imanka de Ramadaan buu la i'tikaafay oo tobanka ugu dambeysay quraankana mushafku ku akhriya sidaan uu akhriyo aad uga akhriyo waxyaabaha iyaguna muhiimka ee u baahan in la xuso aan ku soo islayba ku soo gabagabeeyo insha Allah dhalinyarta muslimiinta islaamka in isku daday inay ku dhex faafiso Mareykan gudihiisa waxa asalita ugu waaweyn ilaahay uu ku najixiyay waxa weeyaan inay islaamka ay ku dhaqmeen waxa weeyaan markaad example tahay ay dadka arkayaan iyagoo suuqyada ku dhex tukanaya iyagoo jaamacadda gudaheeda ku tukanaya iyagoo diyaaradda fuushan ku tukanaya marka qaarkood iyagoo highway-ga socda salaadii maqrib ay soo gasho intay highway-ga istaagaan halka ku tukanaya iyagoo magaraansan waxa tiri jaamacadda nashaadkii dacwiga ka dhaxwada iyagoo macalinkoogii iyo ardaygii ay class-ka wada joogeen islaamkii la wadaagaya marka qaarkood waxa laga yaabaa in arin gabadh ina Mareykan intay gacanta ku aynan muslim gacanta soo tootira ay salaan oo dib u noqdo wala Mareykan kuna aad bay u jecel inay ogaadaan why haanadii salaamin baad qursanaysaa anayba gabadh nursing ay ugu tiri aniga inaan kale ma qursi baa jira
ma qoobsi ma jiro marka maxaa dhacay halkaasi inaad u sharaxdo tiraa waxaan garanayaa gabadh inan yamaniya ayaa salaami waayey deetana uu u sharxay soo garanaysid gabadh bay ahayd ners bay ahayd uu sharxay sidii loogu sharxay waxay noqotay si ay la yaabtayba waxaanu salaanaa uun hooyada xaaska walaasha inanta laakiin adugu waxa weeyaan xalaal ma tiid waana qaanuunka islaamka waana qaanuunka ilaahiga kuwa badan oo caqli leh ayaa marka waxyaaba inagu aynu maalinka maanta u haysano wallahi dadka la wadaagi kari maayo ama maalinta dad Mareykan tagtay diyaaradda aad ka tagto aad left and right dad in aad dumar u salaamayso soo garanaysid ama ay gabadha ay ragii salaamayso ama inagu hargeysa jooga laga yaabo in qof Yurubiyaana ama qof Mareykan oo nus lahayn aad bas tiraaba markay gacanta ku soo taagaan aad ka salaanto ragii dumarba labada dhinac laga eego laakiin waxa weeyaan marka kasto oo tacaaliinta islaamka aad muujiso waxa weeyaan waxa dhacaysa in dadku ku weydiiyaan waliba shacabka Mareykanku ha u qaadanun inay dhamaantood diintooda nacbiin ma wada nacbin diinta qaar baa la ilaa maanta cid u sharxi karta ee islaamkiis sax ahaa u sheegta sagarmaysin haddii ay dhalinyar arday ay islaamka inta ay Mareykan iyo North America ay ku faafiyeen waxaan diinayaa su'aasha ah haddii jiri lahayn dawladda islaamiga oo furi lahaa TVCCN to kala oo siyaasad ka hadal waxa kala aan ka hadal ee dadkaasi u bandhiga islaamka bal ka waran maanta hadii la helaha TV sida Al Jazeera oo baaxadaalig oo lacagta lagu bixiyo oo waxay qabataawna in afafka caalamiga sida afgiriisiga sida faransiiska sida afisbaanishka diinta ku faafisa isaan ku faafilaha laakiin lama hayo taasi umuuman waxa weeyaan tusaaluhu waa muhiim jiddan weeyaan inay dadku ay ka arkeen dariiqta muslimiinta inay islaamku ku dhaqmayaan iyo diintii iyo xaqiiqadii islaamnimada laba tusaale shay waana soo gabagabeynaya qaarkiin waxa laga yaabaa inaad laba tusaale hore aad iga maqasheen nin Mareykan ama Mike Branch la yiraahdo waa nin 70yadii uu islaamay waa nin weyn oo xanuunsanaya state kan joogay ku noolaa laakiin Texas buu guuray reer Indiana ayuu ahaa markuu islaamay reer Indiana state buu joogay sababtu uu islaamay bildigiiso wuxuu maalin anoon islaamka waxa ka aqoon ayuu baa waxa nuun bil masaajidkan gal طبعا marka samarka xilliga kuleelka dadku socks ma xidhaan sagarmaysid marka qofka saaba isagoo bila socks markuu soo weysaysto ayaa safkiga la tukanaya waxyaaba inaga aan inaga fikirsiin bay ka fikirsiiyaan waliba qofku ilaahay hanuun iyo xaqiiqo la doonayo wuxuu markiisa loo rukuucay ayuu baa dadka caagahoogu mar eegun left and right midiga bidix bisoo kala wada kalar weeyaan mid cagtiisu madowdahay mid cagtiisu cadday mid cagtiisu brown tahay mid maxay ay tahay waan yaabun ku sababtu inaad garanaysaa sababtu uu yaabay wuxuu yaabay dadkan wada kala kalarka ah ee haddana the same worship place meelkii ku cibaadaysanaya diinta waxa furtay waa diin sax ah sababtu leeyahay baan idin sheegay hadaba waxa weyn Sunday soo maalinta kristaanka adduunka dhan ma waa maalinta kaniisada taga soo ma waxa la yiraahdaa Mareykan maalinta ugu raysiisan badan maalinta ugu cunsuriyad badan Mareykan waa aroornimada subaxnimo sababtu aad garanaysaan qolo walba kaniisada tagta madowga cadaanka lama tukado soo garmaysid in cadaanku isbaanishka lama tukadaan isbaanishku madowga lama tukadaan qolo walba iyagoo ma garanaysaa isirkoogii iyo ethnic groupkoogii raacaya waxa weeyaan waxa helaysaa kaniisada ay leeyihiin Greego kaniisada ay leeyihiin kristaanka carabtu kristaanka mid madowgu leeyahay mid isbaanishku leeyahay mid cadaanku leeyahay marka wuxuu hadii kristaankii xaq sheeganayaan ku dhashay lagu soo koriyay aanu madowgii cadaankii aanu midayn karin oo kaniisada cadaanka aanu madowgii aan loo ogoleen diintani cadaankii iyo madowgii iyo yalowgii waxa doon ahaadaan isku wada keentay waa diin sax sidoo ku islaamay lamaantana waa muslim wuuna xajiyay alxamdulillah rabbil alamin ila khaatimada hawa jaafan hasiir tusaale kale oo qalabadan aan ku soo gabagabeynaya markaan jaamacadda dhigin jiray ayaa waxaan jaamacadda campuska gudaheeda waxaan ku arki jiray nin dheer oo madow iyo cadaan iska dhalay white iyo black baa iska dhalay nin dheer wuxuu lahaa timo dheer raastada kun raastafaarada la yiraahdo soo garanaysaan timaha soo kala lahaa jaamacadda markasta markuu yimaado wuxuu siin jiray kaman buu siin jiray kaman
هاي ما صح بارك الله فيك جيتار بسنتري كل بس تقانا جيتار يا كمان عفوا أي سنتري marka ana de waxaan haysto ninkan dheer timaha dheer raastada gitaar kana sita de waa nin waa campus kuma ku arkaan sagaashanadii ayaa ninkii laftiisi oo socday masaajidka noogu yimid masaajidkayga ay noogu yimid de waa ninkan wali de astaantiisi iyo dharkii iyo marka timi dheeraad iska jiraysiis kale waana fahmi karo oh ma sha Allah alayk brother you when you became Muslim goorma soo islaantay أنا بيري 1970s تطبعتنادي هاي وبريجي استثناء تبعات بيسون اللي جنتري سوني كوارك تري عليه جيتار ستوار مسلم شغل كلهن مركب حاجة شكلها سوق كسوم مسلمين وحول early 70s صدق صوتك كمالها أي أفغانستان بقى وحن كنت جايبوه يري تلحيش أنا وقارة تأتينا مركان كابل بقى تجيبوه يري شكلي جرى أفغانتهم بيسوي تيبون رجال كواوين عمامها واوين حرن إتذكر عالم كنا البعان ويكن دمر كانوا وده حجابا وحوم بان آدي أو دش على استي إن وان مسلم ومركان مريكان تيمد مسلم بعض هاد سيدنا دي مركان بيسو شباب إنه الدنيا شيء مسلم هاورها لكن تبيت ما كل شيء يقولي دي واحد كستوى سمين شريبه غير فريند بالها خمر كان عبد شري حشد أنا عبد شري موسيقى أنتم شري واحد دون سمين شري وما حد سمين شري كوري ده عبدي أحمد بس سمين شري بقولي عبدي أحمد مسلم ستودنتس جامعة دينا هاي ومقيس علي هاي وعثماني هاي وجمالي هاي خالدي هاي أيام مركان بارك تيجي خمر عبا وي فريان سكر ما يصير مركان واحد سكر تيبويلي waxaan iska qaatay in iska banaantay yahay example-ka ardayga xun ee caasiga ah ee diintiisa ka fogaaday isagina wuu halaabay islaamkiina wrong information buu ka bixiyay oo dad kale ayuu sabab u noqday in islaamkii ay ka fogaadaan umuman ikhwani wa akhawati waxaad tihiin dhalinyar baa tihiin fursad ilaahay siiyay inaad jaamacad adigataan aad waxbarasho heshaan waxa weeyaan waxaan ku soo gabagabeynaa muxaadaradan in aynu ka faa'iideysan karno tajribadaasi ardayda muslimiinta ah ee yaryar labaatan jirnay ahaayeen waxa ugu weyn inuu ka faa'iideysan karnaa waxa weeyaan islaamkaaga haddaanad ku qanacsanin kuma fahmi karsid inanta muslimiintu haddii xijaabkayga niqaabkayga aanay ku qanacsaneen kuma fahmi karto iltizaamkaaga iyo garkaaga iyo islaamnimadaada haddaanad ku qanacsanayn kuma fahmi kartid mabaadi'da ama sax ha noqdaan ama baatil ha noqdaan waxa xambaari kara oo keliya dad ku qanacsan oo wax kastoo lagu sameeyo aan mabda'ooga iyo diintooda iyo caqiidada aan bedeli karin dhalinyar baa tihiin adduunka maanta waxaa ka socda siraac fikriya ayaa ka socda ilxaad علمانية اللادينية أو أي دليل مسلميني أي كتو أسرين وعلى ينكبه هي إن دينتنا أدبرتان إن إسلاميين فهمتان إن عقيدين أدفهمتان وضو أركتان إن إسلامي موضو تاهي دين تكالية حقه إما دأدوك كتالا دين تكالية إما أنت قيامها لقوبة بعد هذا تصواب مدوية طلبات aniga mas'uuliyaddeedu ma aha inaan muslim oo kaliya noqdo oo soomo salaado ma aha waxa isaaran muhiimad kale isaaran oo ah inaan islaamnimadayda umamka kale aan la wareego ballighu anni walaw aaya yuni sallallahu markaasi islaamkani waa inaan dadka kale aad la wadaagtaan ama hada qof aan muslim ahayn ama walaal rag iyo dumar waxay yihiin diintoodii ka gaabiyay fikrada kala qaatay islaamnimadoodii shaki geliyay waxa laga baahan yahay inaad nashaadka islaamiga qof walbaaba intii karankaaga ah inaad ka qayb qaadato billati hi ahsan waxaan kaloo idinku dardaarayaa ikhwaani wa akhawaati inaad qalinka isticmaashaan qoraalku waa muhim af Soomaali wax ku qor af Carabi wax ku qor af Ingiriis wax ku qor waxa tiin arday jaamacadaad tihiin waa inaad ka caado dhigataan
inaad afkaartiina iyo diintiina iyo hawiyadiina iyo identity-giina islaamiga inaad dadka kula wadaagtaan qoraal aad kula wadaagtaan waxa weeyaan duruus badan baa laga baran karaa waxa ugu dambeeya saan ku bilaabay adduunyada ama raad xun baad kaga tegaysaa ama raad wanaagsan baad kaga tegaysaa taasina waxay ku xidhantay your own choice qaraarkan maanta agaado ma wanaag baa la iga sheegi doonaa birtona markaa dhinto mise xumaan baa la iga sheegi doonaa ugu dambeyn dhalinyar baa tihiin cimriga dhalinyarnimadu waa cimriga qofka bini'aadamka ugu qaalisan tacliim baad xasilin kartaa waxaad xasilin kartaa cibaadad xasilin kartaa waxaad xasilin kartaa maal baad xasilin kartaa waxyaabo badan baad dhalinyarnimadaada aad ku xasilin kartaa dhalinyarnimaduna waa mar kaliya ee ma soo noqoto waxaad ku bixisaa dhalinyarnimadaada inaad noqoto muslim khaalisa oo diintiisa iyo islaamnimadiisa ku faanaya kuna dhaqmaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم جزاه الله خير أشرقت نفسي بنور